soo dhawayntan runtii waxaa si hagarlaan idinku fidasay hay'adda Hirda iyo jaaliyadda Soomaalida magaalada Amsterdam ee nawaaxigeeda Sanford runtii barnaamijkan waa soo dhawayn oo kaliya runtii fanaanka al-Ustaad Axmed Naaji Sacad waxaa sidoo kale fanaaniinta caawana la jooga kamid ah Cabdi Baadil iyo Laki Xaaji Wacays waxa runtii iyaduna xasuus mudan inaanu halkan ugu mahad celino danjiraha dawladda federaalka Soomaaliya u fadhiya wadamada la isku yiraahdo Benelux ahna danjiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya ambassador Dr. Ali Fiqi oo runtii magaalada Brussels safar dheer ugu soo galay inuu halkan inagala qayb qaato soo dhawaynta u fidinayno al-Ustaad Axmed Naaji Sacad قبلي وحيلي جنيو لعبان رمنا جنيو لعبان رمنا قعمها كان سوري لعين قعمها كان سوري لعين لقطة كان قشن لعين لقطة كان قشن لعين كنتي لحرير ايو درب سارة لئيب سكرين كنتي لحرير ايو درب سارة لئيب سكرين قولا ورقيت لعرق كلكي اي كدو سلين سداسة نوركي كبعي وحد كغيره توما هدنا وذا قريبا
qaxooti ka doorte wadahankeeni qani ahay sidaad uga qohoma meeysan ku qanacsanaa wadani baad tahay wadahankaaga waa ogtahay markii ahay wiicdaynaba hadiifka u macay wax badan baad wahaanisood meela badan u martay walaacna ka muujiso weynee ogyahay ee walwal tirow nabiga weelka lahaa بحين وحير بانو جوابا يا ما شاء الله هاي تري قحوتي وحي شيكتو انا كانوا عن كلنا دبيرو مقاتني مقاوني قضاضو ويسك هرلاي هوبا لا مقاتني مقاوني قضاضو ويسك هرلاي هوبا تبايننا هيو قرن دمان كجوجناي انت ستهنا ولا ريال دمانتين dadka ka soo qayb galay xafladan sida quruxda badan loo soo abaabulay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa ururka hirda Dr. Aduun Faarax oo arrintan si fiican ku soo abaabushay inta kadib waxa runtii caawa arti noo ah dad qiimo ku leh mujtamaca Soomaaliyeed dhexdooda gudaha iyo dibaddaba oo waxayna la jooga ustaadka caanka ah ee aad wada taqaanaan oo ah fanaan qaran markaan leenahay fanaan qaran waa garan kartaan kaalinta uu ka qaato halganka dib loogu soo celinayo in Soomaali sharafteedii iyo wanaageedii dib loo soo celiyo aan isna qarankeennii naga duwan Ustaad Axmed Naaji Sacad waxaa kaloo sharaf inoo ah in kulankan uu nagala soo qayb galay safiirka Soomaaliya wadamada isku yiraahdo Benelux Dr. Ali Saciid Faqi oo isaguna runtii safar soo galay mana aha markii ugu horeysay mar walba oo looga baahdo wadanka Holland isaguna diyaar la ah waxaan leenahay Dr. Ali Saciid Faqi adiguna ku soo dhawaaw magaalada Amsterdam iyo guud ahaan wadanka Holland أنا هذا الكرسي ديراني وحن مركل إدليه هاي habeen wanaagsan qowshana waa inoo furanta inaan ku sii dheereeyo ma aha oo wixii waa la sheegay waxaan noo dhiman fanaaniintii oo rabay iyaga xadaaladkooda inay qaybtooda ka qaataan waxaan leeyahay maanta dhan waa la hadlayay soomaalidana Soomaaliya barbaleen ka jira laakiin aniga mar walba waxaan dhahaa barbaleenka xagga ka jira wadanka ka jira si aan wax uga qaban waa inaan midka halkan ka jira laftirkiisa aan wax ka qabanaa waayo anaga dhan hadaan hadda shugri shaaxsan way sheegtay barbalemada dadka Soomaalida haysta xataa anaga oo ururo ah baanan war u hayn hadana oo qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay gurigiisii iyo ilmihiisii iyo shaqadiisii yareed 20 sano halkan joognay waxa u maraysaa integrationka aan sameeyay inuu noqdo in anaga isku filaano waa isku filaanay laakiin inaan wax yar aan hore u dhaqaaqno anaga dadka naga daran aan u tagnana ayadana waa wax muhiim ah taas waxay ku imaanaysaa marka anaga si fiican gacmaha isku qabsano sida Soomaali ahaan ma aha inaan dhahayna aan lacag siino inaan dhahayna sharci aan siino xataa inaan moral support siino dadka qaxootiga ah waa wax aad loogu baahan yahay anaga la turkeena iska warqabno oo noqono dad maaragtay hal af ku hadlana oo markii dawladda la hadlayo ama dadka la hadlayo waa iyadana waa muhiim marka waxaan rajeynayaa gudoomiyaha cusub oo Efsan inuu arrintaas ka shaqeyn doono waayo dalada Efsan waa dalada ururisa Soomaalida oo dhan oo Holland joogta cid kugu haysatana male cid ku haysata male Efsan maanta inay dalada Soomaaliyeed tahay laakiin waxaan rabnaa inay ka soo baxdo waxa loogu talagalay dadka Soomaaliyeed isku keento isla markaas aan noqono dad awood u leh inay macnaha la hadlaan dawladii mugta marka taasna ma dhahay dadka horumaysan qaban laakiin waxa loo baahan yahay dardar cusub in la yimaado cali insha Allah waxaan rajeynayaa in hawsha ilaahay ku jaalid sanfaaw waa jaalid aad aan ugu faano
haddaan nahay Soomaali waayo waa dad waa ognahay inaysan hal meel kaliya aysan ku xirayn waa jaaliyad ee dad badan oo Soomaali ah ee iskugu imaadaan isla markaasna isku soo urursan dadka Soomaalida qof walba oo Soomaali ah oo maanta Holland soo gal uu yaqaanaa jaaliyada taasna sharafteedu waxaa leh dadkii aasaasay Muuse Xirsi waxaa leeyahay aad u mahadsantahay jaaliyada waana ilaahay hadda ninka macnaha isku hayo xidida uu ah oo macnaha asagana awraadeen waxaa leeyahay wixii support ah anaga dhinaceena ah oo Soomaalida ahayna insha Allah waa in la garab taaganahay ururka hirdaha ahaada ama ururada kale oo ayadana Soomaalida oo ka shaqeeya haddii marka aan u soo noqdo macnaha anaga hirda ahaan maxaa nagu kalifaa inaan dadkeena Soomaaliya ka mid noqdo marti sharafta qaaliga ah ee soo dhaweynaysa al-Ustaad Axmed Naaji Sacad iyo safiirkeena Dr. Fiqi waa ku maasanta horta Faadumo iyo Hirda iyo Sanfo oo aan in muddo ah haddaan xasuusto waddanka Holland aan isla wada joognay mid ugu horeysa wadanimada waa wax muhiim ah waxaan uga soo safray meel fog inaan caawa arko al-Ustaad xaqiiqdii asagoo oo socda oo nool caawa uga horeysa xamarana ka imid aniga nin ku dhashay xamarana ahaa laakiin waagaas aad baan u yareen haddase waxaan ku faraxsanahay inaan isagoo caafimaad qaba oo nool inaan ugu yimaado waddanka Holland siduu Faqi sheegay aad iyo aad baa Soomaalida waxaa uga maqan Soomaalinimada xaqiiqdii qof kasta oo Soomaali ah markuu maqlo nin Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed wax gaareen kulli wada xanaaqayaan laakiin waxaa ka maqan inay iyaga is eegaan annaga dadka Holland jooga waxaan qiyaasaa inaan ka duwanahay wadamada kale dhibaatada Soomaaliya ka taagan waxaan u malaynayaa dawladda Holland ama dadka Holland ee Soomaalida ku nool inay wax yar ka qayb qaateen dhibaatadaas laakiin wadamada kale naga badan fiqi waan ka wadaninsanahay wadamada kale caawa marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intaanu Soomaaliya meeshan ku xaadir tahay annagoo ustaadkeena soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa annagoo caafimaad qabna oo nabad qabna inaan waddankeena dib ugu laabano sidaas iyo ahloonaysa الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan horta u mahadinayaa aad iyo aad mahad oo gaar ah aan siinayaa jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkan Netherland oo caawa halkaan igu soo dhaweeyey iyo ururka Hirda ee gabadha walaashay Faadumo Faarax iyo dadka kale ka dambeeya madaxda ayagana aad baan u mahadinayaa soo dhaweynta fiican ee halkaan igu soo dhaweeyeen dadka hortayda fadhiya rag iyo haweenbana aad baan ugu mahadinayaa sida sharafta leh waqtigooda u soo dhumiyeen in aniga igu soo dhaweeyaan dalkan Holland sidoo yani walaalkay safiirka ayuu wuxuu ka hadlay xagga siyaasadda aad iyo aad buu yani runtii meelo badan buu taabtay oo ku mahadsan yahay inta kale iga dambeeyeen oo gabadhii buraanburka qaadiyadana waa ku mahadinayaa gabadhii kalena walaashayda iidana ay meesha khudbad yar ka akhristay iyo walaalkayga ganacsiga isagana ganacsatadaha ee halkaan isagana war ka soo jeeday isagana waa ku mahadinayaa haddaan anigu soo koobo warkayga waxaan ka hadlayaa dhinaca fanaaniinta doorka ay ka qaateen dalka waagii isticmaalka iyo xorriyadda iyo inta madaxa qabteen waddanka ilaa kacaanka iyo burburka waxa ka dhacay haddaan soo hormariyo waqtigii isticmaalka waxaan ahaa nin dhalinyaro oo leegada durbaan yar baan ka tumi jiray markaas muusikada ma aqoon waxaan ku qaaday jirnay heesaha markii isticmaalka wadaninimada halkaasaan ka soo qaadanay waan ku soo kornay xataa waxaa jira heesa carab ayaa la qaadi jiray waxaa la yidhaha haddaan idin xusuusiyo waagii leegada yaa ayuhaa soomaaliyun yaa ayuhaa soomaaliyun شمروا وبادروا عونا عونا فاهدنا يا ربنا وارشدنا
heesta carabta dadka qaadi jiray dhalinyaradaasaan ka mid ahaa iyo waxaan qaadi jirnay oomalaay Soomaaliya ha noolaato addoonkana waa ugaas waa inaan ilownaay bal fiil kan waa addoonkana waa ugaas waa inaan fiil ummadda say isku xirneed heesaha haddaan idin xusuusiyo waqtigii isticmaalka iyo maaliyay tooso isku tiirsadaye hadalkiina taagdarane taageera welihiine heesahaas waxaas ahay markii hooleegada la isku yimaado dadka ayaan ku gubaabi jirnay intii ninka madaxda yimaado khudbada inta u aqrinin ayaa dadka annagaan maaweeli jirnay say ku soo ururaan xisbiga waan soo jiidi jirnay waxay ahayd kicin iyo gubaabin saas haddaan isticmaalka markii xorriyadda la qaatay baarlamaanka ayaan haddana heesii aan qaadi jirnay waxaa ka mid ah oo markaan anagii walaalahayna waqooyi isku soo darsannay goormaan ladnaanaye 60kii lugooyadiina daysaye 26 juun goormaan lulanaye 6 saac goormaan libaanaye 1 luulyo 2 midooday waxaasaan feesi jirnay wax soo qabteenaan idin sheegaa markii kacoo dowladda madaxweyne dadka waxaan ku gubaabi jirnay raadi muqdisho markaas telefisyoonna ma jirin dadka waxaan ku gubaabi jirnay shaqaalaha subaxii heesaan u samaynay oo shaqadooda ku aadan waxaan samaynay ardayda ciyaarka iskuulka aqoon la'aani waa iftiin la'aane waa aqaliyo ilays la'aane ogaada dugsiyada ogaada u'aada walaalayaal waxaa fanaaniintaas oo qabteen heesihii waxaa ka mid ahaa markaan idaacada gala 63 beer nin falo ma barye weligiisna ma baahoode waxaasaan qaadi jirnay meel la dhigto la buurto la buraarugine barqadii la kaco bilaashde la cunaan badane aan isbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne waxaasaan feeshay هذا طريق التيفي ممكن أفوري وحصوصات بيرها بدياي ركوا برواقي أبو وحن قال جني هي هبين كلاد مقدشو لحسا حبينا ما كبيح جني هودا وحمل كان هودا كبيحين وحن لي جني واسقدح صحنا صاحب بيان ساعة دي مرات سو بريا وحولي بقى وحن يمركي ودد يعني ما ركتي أو قلب كلو سمديدو تبقى كودي لابو بديدونو مركز مقران مركزي اسكول بوليسي حرني جري فنانيت وحاسي ورا ريال وفنانيت الدور كي قتل بربركيا كعانك مركو دلناي waxaan kamid ah ninka sagaalka saaxiibina guriga laga soo toosiyay anigoo ogeyn waxa dhacay moogni kaali ali furihi oo idaacadan hay studio 4 saddex studio leh studio 4 ana hay furiis heesa lagu duubay maxaan loo kicii waayaabna nin la arko fanaaniinta shakhsuuf aanay dhinacaas ay qaar ku jiraan la keenay waa war maxaa dhacay askar baan soo qabay ma waxba ma dhicin kacaan baa qabatay dalkii kacaan maxaa yiraahdaa dhahay mana qaar markaas xooga dalka Soomaaliyeed towrad ma qabsatay hees baa la rabaa oo aroortii idaacada lagu furo فنانين تفير ماشي يعني قيمها كجوجان حق اسمها الدولة مركز إلا هسه السماء مركز وأنا نسوي كيف أنا وحنا سماء مركز أنا عارف يقول لي صاحب كيجا مرها صار هاي لحني أنا أكتوبر وضروري اللحظة سومالي قدروا
ay ku doogsadeen xooggi baa dadaalo xukunki dalka haaye annana waa ku raacne hambalya diiran qooy ayaa lagu furay ninka wariyaha sheekaan iga sheegayo qaarkiin waa u joogteen qaarkaan u joogin baan waxu sheegayaa ninka wariyaha subaxii imaanaya waa soo wada soo naxsan waxaa dhegeysta waxay ahayd markaas waxaa lagu furi jiray aayado quraan lixda iyo barka hawada direct bay live bay aayado quraan markaas anaga heesiyaan qaadi jirnay aayada quraanka marka lagu furay ninka oo mudiic ahaa waxaa dhigay waxaad leedahay halkan waa raadi muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya bay ahayd jamhuuriyaha dhihin baa lihi ummadda soomaaliyeed waxaad leedahay halkan waa raadi muqdisho codkii ummadda soomaaliyeed ninkii warka waa loo qoray ood leedahay maanta tawrad baa xooggii dalka tawrad baa dhacday booliiska idin ma soo bixi karaan booliiska ciidankaasi rugta ma soo bixi karaan iskuul ma jiro ya dadkii dabutaati walkaas xildhibaanka waxaa la dhihi jiray dabutaati baarlamaankii iyo idaacadaa la qabsaday kow markii tawladda dhalatay labada meel horta la qabsaday xildhibaanadana waxaa la yidhi guryihiin isku xidhiya sidaasaan u joogna markaa oktoobar lixda iyo barka markii idaacada la furay heesta lagu furay waxa waaye oktoobar waa daruuri raacdayo soomaaliya u daado laba saddex cashi kabacdina waxaan samaynay hees lidhaaho waabaa bariyay bilicsan aroorya baxsan maali allaa buruud leh mahad badan leh baaxad iyo xoog leh bili annagaa leh taasaan samaynay ayaamihii tawladda dhalatay walaalayaal marka waa aragteen wixii zeen xaaji cali baxsan oo yani xooga dalka heesahaan u sameey jirnay ilaa waxaan waa ku soo baxnay iyo shanta Soomaaliya inaan isu keenay hees badan aanu sameynay ya ka soo hooyo horarkii waraabaha iyo maaragtay howdo magacaaga heebsa calankaaga soo hanaan raac yani shanta Soomaaliya aan qiili jirnay marka walaalayaalow doorka fanaaniintaan weli idin wadaa markii hadda dhalatay jabhadda markii hadda burburka dhacayna doorkaan qaatibo dad walaalahaygii baaba sheegeen waana ku mahadsantihiin waad la socoteen kulligiin waad la socoteen koox yar baan ka sameeyey yemen oo waagaas waa beri qaranka anigu waxaan qaybta muusiga qaybta fanaaniinta heesa iyo muusiga ayaan madax ka ahaa halkan waxaa ila joogaa nasiib يعني نصيبها مع تلينا عبد بادل ودنيا ردي الدنبه كوحده بادل عاوة halkaan kusoo dhaweynaynaa fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed ee Axmed Naaji nin kasta oo Soomaaliya kusoo noolaa waagii dowladdii oo ugu dambeysay ee Soomaaliya wuxuu xasuusan karaa doorka Axmed Naaji uu ka ciyaaray kicinta iyo baraarujinta ummadda Soomaaliyeed iyo doorka hadda uu ka ciyaarayo maaragtay arrimaha bulshada Soomaaliyeed runtii mararkan oo kale fursadaha aan helno waxaan jeclaan lahay inaan maadaama aan ahay safiirka Soomaaliyeed ee Benelux runtii waxaan rabaa dadka meeshaan yimid dhibaatooyinka aniga iga qabsado ama iga haysta hooshayda maanta inaan idinla qaybsado dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa runtii ma aha dhibaato dhaqaale ama dhibaato maaragtay capacity laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ah sida sharafta iyo qadarinta ummadda Soomaaliyeed ay u dhuntay sidii loo soo celin lahaa waxaad arkaysaa safaarado fara badan oo Afrikaan oo joogta aan u wada shirno oo mid walba maaragtay ka muuqato dadnimo iyo qiimeyn fiican waddankiisa uu degan yahay anagii oo maaragtay Soomaali ahaan aad arkaysid in Soomaali meel kasta ay joogto ay kala qaybsan yihiin kuwa hadday dibadda joogaan hadday gudaha joogaan nasiib darra marba waxaan isiraadaa Soomaalida waxay ku heshisay inaysan weligood dowlad samaysanin taana nasiib darro waay marka haddaad fiirisaan maanta xaaladda waddanka
Soomaaliya ka taagan horta waqti kasta oo maaragtay post conflict haddii dagaal laga soo baxo waxaa burburay structure-kii dawladeed waxaa burburay hay-adihii oo maaragtay nabad sugidii waxaa burburay hay-adihii oo maaragtay sharci dejinta ama sharci dhoorista marka fowdadii ayaa badanaysa fowdadii hadday badato dadkii waxay kusoo baxeen in maaragtay aysan nidaam diid ay noqdaan midda kaloo sii dheer waddanka hadda waxaa kusoo kordhay nidaamkan la yidhaahdo federalismaha nidaamkaasoo runtii haddii oo si fiican loo isticmaalo Soomaaliya ay faa'iido weyn ay ka gaari karto laakiin dhibka federalismaha wadda uu leeyahay waxay Soomaalida moodaa inay nin walba leeyahay war dhulkayga kac qabiil in maaragtay meel la isugu riixo ay doonayaan in qabiil meel la isugu riixo runtii nasiib darro waxa ah haddaad fiirisaan Soomaaliya maanta ummadda Soomaaliyeed dad fara badan oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo generationka hadda la dhaho lost generationka lumay oo aan mustaqbal haysanin oo aan iskool helin oo aan caafimaad helin oo aan maaragtay hataa aan helin markii edebta maaragtay reerka lagu barbaariyay sababtoo ah odaygii wuu maqan yahay wartii way maqan tahay buuq baa socda marka taa waxay dhalisay in maaragtay ay soo baxaan dad fara badan oo Soomaali maanta ku nool dhalinyarada waxaa lagu tiriyaa boqolkii 60 Soomaalida hadda Soomaaliya ku nool 35 sano inay keenin nasiib darana waxaa intoodii mustaqbalkooda aad u liitaa inta wax baratay ee dibadda joogtana waxay u badan yihiin runtii dad radical ah oo fikradahooda ku adag mid walba doonaya in maaragtay yiraahdo dawladda sida ani un rabo haddaysan noqonin dawladdaas ani ma taageerayo hadda xaaladda socoto sub-Saharan Africa waxaa waaye the next China iyo India waxaa ka jiro maaragtay horumar dhaqaale ama waxa la yiraahdo GDP growth oo maaragtay ilaa 4.5 lagu tiri wadamo qaarkood ilaa 12 maaragtay ay boqolkii ay gaarayaan sida hadda Nigeria oo kala daas oo qabatay South Africa dhaqaale fiican Nigeria marka Europe waad u jeedeen dhaqaalihii waa istaagay unemployment waxaa jiro ilaa iyo 8 dhalinyarada aragtid 4 ku dhawaad shaqo ma laha marka nin walba wuxuu hiiseynaya wadamadan Europe waxay hiiseynayaan in maaragtay Africa ay investment ku sameeyaan marka Soomaalina haddaad fiirisid marka oo runtii heerta ugu dheer oo Africa leh dhinaca kalluumaysiga barwaaqo dhaaf ah jirto xoolaha daaf leh dhul beereed aad u qiimo badan macdin fara badan leh batrool iyo gaas la qiyaasi karin ayaa waxay isku haystaan waxaan macno leh marmaran waxay isiraahdaa Soomaalida waxay noqdeen mataaniyaal kala maseersan ninka Soomaaliga haddaad fiiriso wuxuu ku maqan yahay maaragtay nin kaloo Soomaali moogiye kuma maqno nin kaloo shisheeye ah oo ama waddan kale u dhashay inuu la tartamo taana runtii waa arrin aad u qaab daran marka meeshan aniga uma soo istaagina khudba dheer ka jeediyo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego runtii inay sharaf tahay ay anaga noo tahay haddaan ummad ahaan mabda'iyan wax waa lagu kala duwanaan karaa fikrad waa laysaga soo horjeesan karaa laakiin hadday noqoto fikradeyda haddaanan raacin waxaa dhan waa burburinaya waxaan qabaa in laga fiicanya dawladda hadda jirto haddaan gacan la siinin stageka hadda ay taagan tahay stageka la gaarsiinin kan kaloo imaanaya berina isagana waa laga tuuraa mucaaridkii aa ku badanaay wax soconaya male sidaa ka warqabtiin dawladda Soomaaliya shilin cad ah lama sii gacanta lagama saaro dawlad kastana waxay ku leedahay waddankaa waa caawinaa marka su-aasha meeshtaan waxay tahay sidee loo caawinaa ama lacagta UN-ta gacanta laga saaraa ama FAO-da ama WFP
ama waxaa la siinaa NGO yaal marka haddii soomaalida ay tuug tahay dowladda soomaaliyeed aan la aaminaynin shacbiga soomaali la aaminayn laakiin waxaa idin sheegaa shilinka haddii hal shilin soomaaliya lagu deeqo afartan maaragtay sentii soomaali ma aada